afar dal oo ka tirsan qaaradda Yurub oo ogol baasaboorka Soomaaliya. Muuqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa afar dal oo ka tirsan qaaradda Yurub oo ogol baasaboorka Soomaaliya. baasaboorka Soomaaliya ayaa dhowrkii sano ee la soo dhaafay u muuqday mid soo xoogaystay markii loo eego sidoo ahaa wixii ka dambeeyay burburkii dawladda dhexe ee 1991. inkastoo uu meel hoose uga jiray liiska kala sareynta baasaboorada, haddana waxa uu u muuqday in sanadkan ka horeeyo wadamo kale oo waaweyn oo ay ku jiraan Pakistan, Iraq, Suuriya iyo Afghanistan. sida lagu sheegay xogta ay shaacisay hay'adda baasaboorka Index oo ay qiimeysay sharciyada socdaalka caalamka. horumarka uu sameeyay baasaboorka Soomaaliya waxaa ka mid ah in wadamada Yurub qaarkood ay si rasmi u aqoonsadeen muddo dheer kadib. Talyaaniga, dadka haysta baasaboorka Soomaaliya ayaa marka ay dalbadaan dalkugalka Talyaaniga waxay baasaboorkooda si caadi ah loo saarayaa viisaha. dalal badan oo kale ayaa qofka Soomaaliga aan baasaboorkiisa ku dhajinin viisaha, iyagoo warqadda caddeynta viisaha si gaar ah u siiya dawladaha sidaas sameeya. waxaa ka mid ah UK, inta badan waa dalalka Yurub, Canada, Australia iyo Mareykanka. waxaa xusid mudan in Talyaaniga uu ka mid yahay gumaystayaashii Soomaaliya, sidoo kalena yahay dadkii ugu horeeyay ee aqoonsaday dawladda Soomaaliya. Norway, tan iyo bartankii sanadkii 2018 dalka Norway ayaa aqoonsaday baasaboorka ay dawladda Soomaaliya siisay muwaadiniinteeda. dadaal dheer kadib ayay safaaradda Norway ku dhawaaqday xilligaas inay aqbashay jiritaanka baasaboorkan, sidaas awgeedna ay dadka u wada safri doonto dalku galkeeda viisaha haddii ay shuruudaha ka soo baxaan. wada shaqayn dhow oo ay yeesheen mas'uuliyiinta socdaalka Norway iyo Soomaaliya awgeed, Norway waxay aqoonsan doontaa baasaboorka Soomaaliya laga bilaabo 1 bisha August 2018. waxaa ku jira baasaboorka diblomaasiga iyo kan shaqaalaha dawladda iyo baasaboorka muwaadiniinta caadiga ah ee ay soo saarto waaxda socdaalka Soomaaliya, ayaa lagu yiri qoraalka markaas ay safaaradda Norway ee Soomaaliya soo dhigtay boggeeda Twitterka. wadamada kale ee Yurub, UK iyo dalal badan oo kale waxay baasaboorka Soomaaliya dadka wata u aqoonsan yihiin qaxooti. haddii ay dalkugal u ogolaadaanna kuma dhajinayaan baasaboorka. taas beddelkeeda waxay soo raaciyaan warqad caddeynaysa in viisaha la siiyo qofka macluumaadkiisana ay ku xusan yihiin. Sweden, hase yeeshee dawladda Sweden ayaa si gaar ah u qadarisa baasaboorka Soomaaliga ah ee noociisu uu yahay diblomaasiga. tani iyo bishii Janaayo ee sanadkii 2020 ama 2020 Sweden waxa ay aqoonsaday baasaboorka diblomaasiga ee Soomaaliya, balse dhammaan noocyada kale ee baasaboorka Soomaaliya ma aqoonsana Sweden sida lagu sheegay bogga internetka ee safaaradda Sweden. Belgium, wadamada Yurub ee aqoonsan baasaboorka Soomaaliya waxaa kale oo ka mid ah Belgium. horaantii sanadkii 2019 ay dawladda Belgium oo ah wadan ka tirsan midowga Yurub ku dhawaaqday in ay aqoonsan tahay labada baasaboor ee Soomaaliya ee kala ah serviska iyo diblomaasiga. bayaan 1 bishii Abriil ee sanadkii la soo dhigay bogga Twitterka ee safaaradda Belgium ku leedahay Nairobi ayaa lagu xaqiijiyay aqoonsiga noocyada baasaboorka Soomaaliya. wadamada Latin America ee viisa la'aan lagu tagi karo baasaboorka Soomaaliya. dhowr wadan oo ku yaala koonfurta qaaradda America ayaa baasaboorka Soomaaliya lagu aadi karaa iyadoo aan wax dalku gal ah ama viisa ah loo qaadanin. dalalkaas ayaa kala ah Bolivia oo qofka markii uu garoonka dalkaasi ka dego la siinayo viisada. Dominica, Haiti, waxaa jira wadamo kale oo sidaas si la mid ah soo dhabeeya muwaadiniinta Soomaaliya. wadamadan qofku u socdo waxaa kaliya ee looga baahan yahay waa inuu tikid goosto toosna ugu dhoofo, sidaas awgeedna marka uu ka dego ayaa la siinayaa aqoonsiga muujinaya joogitaankiisa. waxaa ka mid ah Benin oo ah wadanka ku yaala galbeedka qaaradda Afrika, Gambia oo ah wadan yar oo isla galbeedka Afrika ku yaala, Cook Island oo ah jasiirad dal samaystay oo ku yaala badweynta Pacific, waxa uu xiriir siyaasadeed la leeyahay wadanka New Zealand, Malaysia oo ah wadan ku yaala qaaradda Aasiya, Micronesia oo ah wadan jasiirado isu tagay oo ah ka tirsan qaaradda Ocean oo dhacda dhinaca galbeedka badweynta Pacific. calankiisa oo xoogaa shabaha kan Soomaaliga ayaa ah buluug ay dhaxdu uga yaalaan 4 xidigood oo cadaan ah, 5 geesoodna wada ah. Niue oo ah wadan jasiirad ah oo ku yaala dhinaca koonfurta badweynta Pacific. mawduucana maanta halkaas ayuu ku egyahay. Assalaamu calaykum.